بسم الله الرحمن الرحيم رمضان الكريم waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan inaan oga warbixiyo kiiskii dilka ahaa ee shalay bacdul afur ka dhacay xarunta tan ee aynu joogno kiiskaas oo badi ay bulshada Soomaaliyeed laga marin habaabiyay looguna tilmaamay goob aysan waxba jirin balse baaris dheer iyo dabagal dheer oo ay booliiska Soomaaliyeed sameeyeen la helay xaqiiqda kiiskan wuxuu ka dhacay gudaha gurigaani waxaana isqabsaday labada shakhsi ee kala ah ay bulshada Soomaaliyeed u kala taqaano atooraha badda iyo leeleefow oo ah ninka atooraha badda la jila filimaanta labadoodii oo dad muxsiniina ay u soo diraan lacagyow ay ku caawiyaan bulshada Soomaaliyeed balse lacagtaasi oo cadadkeedii batay khilaaf ka dhashay awgeed ay ku sababtay labadoodii inay isku gacan qaadaan dabadeedna uu nin ku dhinto kiiskan sida ay bulshada Soomaaliyeed loogu marhabaabiyo oo inay shabaab ka qayb qaateen ma jiraan gacan ku dhiiglahana wuxuu qirtay inuu dilka asaga geystay oo ay khilaaf dhaxmaray dagaal dhaxmaray min dil isku dhuftay kadib ay bistoolada soo dhax gashay dilkana uu fuliyay gacan ku dhiiglaha hadda uu booliiska gacanta ku hayo gurigan aan dhex joogno waxa wax loogu qeyb jiray bulshada Soomaaliyeed oo maati ah sida ku cad warbixinta uu qoray gacan ku dhiiglahana wuxuu sheegay lacag 60 iyo ka badan 60,000 iyo ka badan inay dhaxdooda taalay uu dabadeed isku khilaafeen uu marxuumku ku yiri shaqadan anaa bilaabay anaa watay anaa ogol waxay sameeyay jiray ee iga tag adiga iyo hadaan ka tagay wixii aan kugu leeyahay xaq aysi iyo kuma siinay kumbigu milid shaqada anaa qabsanay wixii hore oo inta Allah kugu anfaa dabadeedna ninkan uu gacan qaad bilaabay isqa qabsigii mindidii iyo waxay isku qabsadeen mindi kan la baxay kan mindidii markuu ka taagay halkaas uu ka galisay kan bistooladii la baxay hal xabad uu gacanta ugu dhuftay maadaama uu ka xoog badnaa intii laalay uu bistooladina gacanta kala wareegay dabadeedna uu 3 xabadood ku dhuftay sida ku cadeed kiiska bistooladii iyo mindidii la isku dagaalay asagaana wacay booliiska Soomaaliyeed gacan ku dhiiglaha oo 199 wacay uu yiri atooraha badda la dilayna soo gaara markii booliisku ay yimaadeen intaysa imaanin ka horna wuxuu dabaqada sare guriga saaray saqafka guriga ku tuuray bistooladii iyo mindidii ay isku dhufteen markuu booliiska yimidna wuxuu u sheegay in niman shabaab soo weerareen dileen asagana uu ka badbaaday arrinkaas oo aan sax ahayn oo marin habaabin bulshada Soomaaliyeed uu ku sameeyay ugu dambeyntiina uu qirtay inuu dilka asaga geystay saaxiibkiisna gacantiisa ku baxay wax dhex yaaleen ay ahayd maal adduunyo oo dhan 60,000 iyo wax jajaba la jiro marka bulshada Soomaaliyeed waxaan xaqiijinaynaa gacan ku dhiiglin in gacanta lagu hayo maxkamadda loo horgeyn doono marxuumkana inuu dilay asaga qirtay kiiskan uu cad yahay ay sajirin wax shabaab ah inta soo weeraray gurigan soo galay uu dilay marxuumka afkiisna uu ku qirtay gacan ka dhiiglaa inuu asaga dilay shalay bacdul afurna ay dhacday waa mahadsantii